ببلغ بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo maalin axad taariikhduna tahay 29 bisha September 2019 waxaan halkan iskugu yimid siyaasiyiinta iyo waxgaradka ganacsatada iyo dadka u dhaqdhaqaaqo deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo arrinka isu keenay oo dadkan ay rabaan inay maanta ka hadlaan oo ay xoogga saaraan ayaa qayladhaan soo wajahday gobolka Gedo gaar ahaan arrimaha abaaraha xaalad bini'aadanimo oo taabatay dadka deegaanka degan lagaba yaabo dad badan oo shacabka Soomaaliyeed inay la socdaan in laga arinsado xildhibaanada iyo dadka matalo deegaanada iyo dadka community dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada oo abaartu ay saameysay xilli roobaadkii la dhaafay warihii iyo biyihii iyo ceelashii saameyn ballaaran ku yeelatay hadda waxa ugu daran oo saakaba aan ka helayno xogta waxa weeyaan in biyo la'aan xoogan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saameysay abaartu meesha xilligii roobka di'i jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii asaga ahaa waqtigiisii la gudbay marka in tala laga yeesho baaqna la diro dowladda iyo shicibka Soomaaliyeedba lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan hadda xaaladda markay taagan tahay wax laga qabtaa hadday gudubto wax qabad waxa weeye markaas wax tari uu mahayo marka waqtigii asaga ahaa oo in wax laga qabta ay ahayd ayay taagan tahay dowladda Soomaaliyeed halkan way joogtaa wasiirra deegaanka ka soo joogdo ayaa joogo oo sidaad arkaysaan halkan nala qaybsanaya arrinta marka waxaan u baahannahay in si macno leh loo wajaho arrintan sida macnaha leh markaan leenahayna inaan la dhayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso loo istaago wax qabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horeeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo qof kasta hadday oo mas'uul ah ama shacab ah in deegaankaas ba ha ka soo jeeda hadduu ay ahaatabe inuu hawshaas ayada ah wax qabadkeeda u istaago mas-uuliyad weynna la iska saarto deegaankan jaaliyadihiisa ku nool dibadaha inay ka soo qayb qaataan oo ay hadda ay ka war hayaan qaarkoodba nala soo xiriireen arrinkaas isagaan iskugu nimaanay waxaan u baahannahay in hawshaas iyada ah ficil adag aan ka qaadano inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka khayrka jecelna aan la wadaagno kadibna aan shaqo bilowno ka shaqeyno arrintaas iyada ah aan garab istaagno shacabkaas isaga ah oo dhibaataysan waa mahadsantiin wax la baryo ilaaha ugu weyn asaan ummadda dhibka ka saari kara binaadin la baryay meelna nama geynayso ilaah waxaan ka baryaynaa in ma aragtay ummaddan dhibaatada colaada iyo dhibka inuu ka saaro tan labaad waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq uga jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kuwa biyaha maamula iyo kuwa kale humanitarianka kale ah in ay gargaar degdega la gaaraan
goboladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan Gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba soo gaarayso dowladda federaalka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhammaan gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan xukuumadda oo dhan ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay deganeyd ay ka soo barakacdo oo xiriir la geliyo oo lacag EVC loo tuurtuuro haddii la rabo waa goonigeedii ummaddan in ay baaba'ayso oo xiriyaha in xiriir dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii laakiin dadka intaysan xiriyaha ka soo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan waxaan rabnaa in ummaddan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeray biyo la'aanta ay jirto wasaaradda tamarta biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabnay inaan ma aragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii karaankeeni ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan ma aragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay ma aragtay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aada u tiro badan waaye kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigeeda waa u baahan tahay marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitariumki iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq u jeedinaynaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen ceelashii biyihii yaraa ku horeen ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin oo dhibaataya cudur hadda ka dilaaci raba ayaan rabnaa in si degdeg ah wax loogu qabto aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida khiyaartii ugu horreysay ay u sheegeen waxaa weeye gobolka Gado oo ka mid ah qayb ka mid ah Jubbaland ana gobolka ugu ballaaran oo aada u baahsan xuduudda ugu dheerna la leh Ethiopia iyo Kenya ba la leh Ethiopiana la leh Kenyana xuduudda ugu dheer Soomaaliya la wadaagta la leh deegaanada xigo bartamaha iyo dhanka fog oo xuduudada xigo abaarta aad bay u saameysay si aad ay u saameysay waqtigii roobka sidii khiyaartii ugu horreysay bay u sheegeen waa la soo dhaafay hadda bishaan hadda aan ku jirno aakhirkeeda ma u malayna berri ka dhiman tahay ilaa 15keeda iyo ilaa 12keeda waxaa la saadaalinayay inuu waqtigii roobka yahay roobkii horena waa yaraa sanadkii hore dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye waxaa bilowday xoolihii inay biyo la-aan iyo baad la-aanbo la dhinteen oo la dhiman hayaan haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanadii iyo meeshii xoolaha iyo joogan kasoo barakacay biyo la-aan daraaddeed iyo baad la-aanbo inay bilaabatay dhimasho waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya gurmad degdega inta tabarteeda ah wixii awooda inaan laga haqran iyo sida ugu dhaqso badan waxaa kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka hay'adaha samafalka arrinta iyada ah in la ballaariyo oo la gaarsiiyo siday ugu gurman lahaayeen oo degdeg haddii loo baahdo hataa hawada looga soo daadiyo dadkaas meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan airborno lahayn dariiqyo loo maro inaysan lahayn oo wax lagu kala gudbiyo laakiin haddii ay jirto kalsooni iyo niyad sami siyaalo badan baa dadka wax lagu gaarsiin karaa marka waxaan taas ka rajaynaynaa marka gurmadka hay'adaha samafalka ah inaan waqti ku lumin oo haddii maalintii la dhaafaba waxaa dhici karto inay dad sii dhintaan oo dad sii tabaaleysan ay meel soo gaari waayaan meelaha wax lagu siin lahaa waxaan kale oo aada iyo aada u kabahayaa xildhibaanka iga horreeyey oo sheegay gobolkaas waa gobol baahsan ballaaranna dowladdana inta badan bo sideeda marka aysan hadda jirin tabaalo tan oo kale ay dhibaatadan aysan jirin si waxa ku gaaraan ay aada u yar tahay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda iyo xukuumadda labadaba guud ahaan
in aan la tegin in muddo ah in la tago bal soo booqdo horta waxa gobolkan laga hadlayo wuxuu yahay magaalooyinkiisa marka waxay ogaan karaan meesha waxaa ka jiro dadkan oo dhibaatada ah iyo wixii ugu sahlan oo wax laga qaban karo intaba waxay soo arkaan bay noqon karaan marka waxaan ku boorinaynaa mas-uuliyiinta dowladda bal in la tago gobolkaas oo la booqdo oo waxaa laga yaabaa in mashquul ugu yahay magaalada ay ka xigto caasimadda deegaanka uu ka xiga caasimadda waxaa laga yaabaa in mashquul ugu yahay oo aragtida iyo dhibka waxay arkaan war laga gaarsiiya la yidhaahdo marka midda iyadana waxaan codsanaynaa in la booqdo oo hadduu ra-iisul wasaare yahay hadduu madaxweyne yahay fursadaha ugu horeeyo lagu booqdana waa soo joodinaynaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واعي بلدك الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير ذا حلواننا صاحبنا هاي صحافة كل السلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب بدي يجوريين الشيئين قبل كان جدو وقبل بلارن دباتوين كجرتو وأمارات oo biyo la-aan iyo baad la-aan roobkii oo ka soo daahay darteed marka hore dadka deegaanka waxaan leenahay waa inay sacfiyaan soo xaartaan salaadul istisqaa u soo baxaan salaad roob doonay Soomaalidu u yaqaanaan ilaahay baryaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala culayskaas ka qaadi kara hay'adaha lagu warwareegaya iyo waxaas waxay yihiin kule hay'adaha naftarkooda ilaahay baa wuxuu soo dhiibaya in ilaahay baryaan baa marka hore aan kula dardaarmaynaa roobka ma baaqan laakiin wuu soo dib dhacay oo deertii baan ku jirnaa Oktoobar bilowgeeda waa xilligii la sugayo weeye gacmaha kor loo taago oo ilaahay la baryaan aniga marka hore aan soo jeedinayaa lisna cafiyo macnaha dad calooshooda iyo uurkooda kala tagsan yahay oo khilaaf ku jiro waxaway roob la-aanta oo lagu ciqaabayaa waa ciqaab ilaahay weeye marka dadka waxaan u soo jeedinaynaa abiilka inay marka hore iga sacfiyaan ilaahayna u noqdaan colaadaha dhexdoodana joojiyaan ilaahayna baryaan si ilaahay raxmadiisa ay u helaan midda labaad sida la sheegay dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan sida qaybta humanitarianka qaybta biyaha uu nagala joogaba wasiirkeenna waxaan cod dheer aan ugu sheegaynaa meesha inay u gurmadaan oo dadka waxay la qaban karaan ay la qabtaan sidoo kale ay qabtaan shirar ay isugu yeerayaan international community-ga oo baaq ay u jeedinayaan haddii kuna qasbayaan inay deegaanka ay ka shaqeeyaan ayaga haddii mandate siiyey waddanka inay ka shaqeeyaan marka maadaama dowladda ay mandate-kaa siisay waa in hadba meeshii daran loo diraa aysan ayaga ay meeshay rabaan aysan ka shaqaynin ama dadaan waxbaba baalki maxal dhib haysanin aysan ku dul wareegin dowladda baaqaasaan u diraynaa sidoo kale jaaliyadaha dibadda ganacsatada gobolka u dhalatay waxaan leenahay idinkana dadka soo gaara Soomaalida kulley sanadahan dambe sida looga bartay ayadaa is caawin jirtay oo isu gurman jirtay taasaana ka nacfi badan waa sadaqay idin noqonaysaa dadka baalki maxalla tujaarta ah iyo dadka dibadaha jiro jaaliyadaha waxa waaye daawo bisadaqa la yiri xoolaha sadaqada loo bixiyana ma nusqaamaan waa ay kasii baraaraan waxa uu manaxyaaha fakaannama ahya an-naas jamiican qofkii qof nooleeya isaga iyo xoolihiisa asoo dadka dhan nooleeya weeye arrintaasna waxa waaye jaaliyadaha iyo ganacsatada u sheegaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. waxaan marka hore salaamayaa wasiirada xildhibaanada saaxiibadii warbaahinta ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta meel Allah meesha joogaanba waxaa jirta cabasho aad iyo aad u weyn oo nooga timid gobolka Gado taasoo ah biyo la'aan iyo cunno la'aan taasoo saameysay shacabka ku nool guud ahaan gobolka Gado oo biyo la'aanta iyo abaaraha oo ugu badan tahay qax taasoo ka dambeysay duqeymihii faraha badnaa oo ka dhacay gobolka sababtayna dhimasho dunya dad
iyo qax ka baxsan bini'aadanimada. waxaan ka codsanayaa hay-adaha xaquuqul insaanka kuwa bini'aadanimada ka shaqeeya dhammaan beesha caalamka inay gargaar degdeg siiyaan dadka ummadda Soomaaliyeed oo meesha ku dhiban. dhinaca kale dowladda federaalka ah waxaan baaq ugu dirayaa in wasaaradda u xilsaaran bini'aadanimada ay u dirta gobolka si ay u tagaan una soo xaqiijiyaan dhibaatada ka jirta meesha ayna ula gargaaraan ayna degdeg gargaar u geeyaan. midda kale Jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol: gobolka dhexe, shabeellada hoose iyo gobolka Gado. jubbada hoose, jubbada dhexe iyo Gado. jubbada dhexe dowlad ma maamushawa. tan hoosena madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way booqdeen, balse gobolka Gado oo ah gobolka keli oo laba wadan oo waaweyn oo darees la ah Soodin uguna dhib badan oo xagga duqeymaha ugu dhib badan, abaaraha markay timaadaan ugu dhib badan, uguna resource badan, abaaradana ugu badan tahay, yaa wuxuu baahi weyn u qabaa laga bilaabo 2017 February maalintii dowladda Soomaaliyeed ay caga dhigatay ilaa haddeer waxay sugayaan dowladda Soomaaliyeed inay tagto ama aragto ama arkaan oo indhahooda ku arkaan oo baahi u qabaan. waxaan u dirayaa baaq qaasatan dowladda federaalka mas'uuliyiinta sarsara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo mahadsan inay shacabka Soomaaliyeed dowladdaas ay sugayaan maalintii la doortay ilaa haddeer inay korgeeyaan muuqaalkooda si ay u dareemaan dad dowlad leh inay noqdaan. waayo waa dad 3 qayb u kala qaybsan, qaybna ay shabaab dhinac ka haysata, qaybna ay dhinac kala jiraan oo laba wadan u dhaxeeyaan, qaybna ay dhinac u go'santay. waxaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan gaar ahaan dadka ummadda Soomaaliyeed oo degan gobolka Gado inay dhiban yihiin xaq biyo baad colaad iyo abaara baxsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجين أبار أد وادب وحن جعلهاي إن مرك وهر رئيسا عن إلهي وبرينه يون إلهي السجا قبوشين كرين إلهي قبوش مدر خير قبه إلهي دلش كدل شبه هدي روب هلان دتكاسوا قبوبيا وحاو درن وأون كيبا وقدرن وريه يقللي بيه يسبدلي meel biyo iska bedeleen baadkiina waad garan kartaan. waxaan leeyahay ugu horeyn Ilaahay subxaanahu qaadir inuu nasiyo madar khayr qaba. tan labaad waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha ganacsatada hay-adaha ka shaqeeya samafalka in ay gurmad la gaaraan gobolkaas guud ahaan gaar ahaan gobolkaas Gado oo laga soo sheegay dhibaatada aad u xoog badan ee daran laga soo sheegayo. waxaan abiil u dirayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha safaradii ugu dambeeyay ee gobolada ku marayeen gobolka kaliya oo aysan ku marin weeyeen Gado. waxaan leeyahay gobolka dhibaato ka taagan, ra'iisul wasaare tag, madaxweyne tago indhaha ku soo arag waxna ka qabo. buudooyinkii kulaha gobolku waa go'an yihiin, isku socodkii dadkii waa go'an yahay, dadkii ma socon karaan waa soo barakaceen, baar dheer qaar yimaadeen, waxaana wax ay aad u tageen ma laha. ra'iisul wasaare madaxweyne waa gobolka madaxweynaha ra'iisul wasaare oo haydeen gobolada Soomaaliya waa tagteen halka tagan leeyahay. waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu hay sacafiso ilaahina madar khayr qaba hana siiyo. السلام عليكم ورحمة الله. wasiirada iyo xildhibaanada iyo bahda saxaafadda waa salaamantihiin. salaan kadib waxaan u maleynayaa hadalka ujeedadiisii hadda way caddahay, muhiimadiisina waa la idiin sheegay. kulankeennan kulan saxaafadeedka muhiimadiisa ugu weyn waxay ahayd in caalamka iyo cid kastoo awoodi karta inay caawiso dadka gobolada Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Gado oo duruufo adag ka jiraan xagga nolosha ah lala socodsiiyo cid kasta oo caawin karta lagana codsaday inay caawiso. Gado horaan looga sheekeeyay waa gobolka wuxuu ka mid yahay waa gobol ka mid ah gobolada ugu ballaaran dalkeena. runtii duruufo ku hareeraysan oo waqti fara badan haysteen way jiraan oo ay tahay in la fahmo si basic dadka Soomaaliyeedna u fahmaan cid kasta oo wax ka qaban kartana ay u fahamto.
xuduudo wuxuu leeyahay laba dal, waa dhul muxuu ahaa dhul daaqsimeed ah, roobkii wuu yaraa labadii xilli ugu dambeysayba, duqeymo fara badan oo ciidamo darisyada ahay ku sameeyeenna waxay abuureen barakac aada u xoogan, hanti badan baa ku burburtay, xoolihii baa ku baaba-ay, ceelashii baa ku baaba-ay, waxay sababeen marka in xeryo qaxooti, xeryo barakacyaal xoogani ay ka abuurmaan gobolkii, noloshii inay adkaato, biyo la cabo la waayo, caafimaadkii xumaado. marka dadka Soomaaliyeed ee wax heli kara, qof kasta oo Soomaaliya wax heli kara, iyo muxuu ahaa international community-ga ama bahweynta caalamka ee caawisa goobaha duruufuhu ka jiraan, waxaan ugu baaqaynaa meeshaas gurmad degdeg ay u baahan tahay, gurmad xilligiisii joogay u baahan tahay, gurmad hadduu dib dhaco dhibaatadu sii ballaaran doonto ay u baahan tahay. waa momentum ay tahay ummadda Soomaaliyeed in lagu badbaadiyo, cid kasta oo wax heli kartaa marka xilliga ugu habboonaa weeye inay tagto. waxaan la wadaagayaa xildhibaanadii iyo wasiiradii iga horreeyay baaqa ah hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh inay ama iclaamka geliyaan duruufaha meeshaas ka jira ama iyagu u gurmadaan, sida wasaaraddii maareynta musiibooyinka. waxaan muxuu ahaa ka codsanaynaa iyaguna inay si degdeg uga howlgalaan. waa dadkii mas-uulka u ahaayeen, waa dadkii dowladda u ahaayeen, waa dadkii loogu dhiibay mas-uuliyadda ay ku shaqeynayaan. sidoo kale madaxda qaranka waqti dheer baa dadka gobolku muxuu ahaa uu sugayey. waxaan u malaynayaa madax qaran oo booqata waxaa ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh, weliba xilliyadiisi ugu horreeyey xilli ka mid a, marka laga hadlayo madaxweyneyaasha ra-iisul wasaareyaasha gobolka in la booqdo oo lasoo arko waxa ka jira iyo dadku siday u nool yihiinna waan ayideynaa. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa ugu baaqaynaa. shirakaadka iyo dadka ganacsatada ee Soomaaliyeed, waxaan u malaynayaa maalka ilaahay subxaana watacaala wuxuu idiin siiyey inaad waajibaadkiisa ka gudataan. waa xilligii ugu habboonaa. waxaan kula talinaynaa, waxaan ka codsanaynaa, waxaan u sheegaynaa in aysan la sugin international community-gu kiishgaloy ay keenaan. wixii ilaahay subxaana watacaala uu u dhiibay inay dadkaas Soomaaliyeed ugu gurmadaan, dareemaana duruufaha ku hareereysan ee ka duwan duruufaha gobol kasta oo kale oo Soomaaliyeed. abaaraha waa la wadaagaa, laakiin waxaa u dheer colaado iyo xasarado dowlada ku lug leeyihiin iyo nimankii muxuu ahaa dowladnimo diidka ah saldhig rasmi ka dhigtay. ilaahay baa mahadle, degmooyinkao dhan hadda way ka madax bannaan yihiin nimankaa dowladnimo diidka ah, laakiin duruufaha dowladaha dariska ah ay abuureen waxay sabab u noqotay dadkii inuu barakoco, inuu noloshii ka burburto. dadkaas ha loo gurmadaan lahay, ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka wax haysta. ilaahay subxaana watacaala wixii wax laga bixiyo wuu barakeeyaa. culumaa joogta oo ka hadashay, aada buu u mahadsan yahay xildhibaan cabdullaahi carab oo wacdiyey oo sheegay muhiimadda ay leedahay sadaqadu. maalkiina wax ka bixiya u gurmada dadka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin.